wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada qaybtii 8aad ee sheekadii aynu ugu magac darnay curad. qaybtii 7aad ee sheekadan ayaa waxay noo joogtay Maxamuud oo arkay inuusan xaalka wanaagsaneyn kadibna uu banaanka u baxay waxaana raacay maamadii iyo sidoo kale odaygii adeerka ahaa laakiin goor dambe waxa dib u soo laabtay odaygii adeerka ahaa iyo sidoo kale maamadii. ha yeeshee qaybtan 8aad waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. qofna uma sahlana isagoo cilaaj ku socda oo haddana dareenkiisa uu siiyo wax ka socda hareerihiisa. mahsanaantayda iyo weliba habdhaqankayga ka duwan bukaanadii soo maray wadaadkan haysta xanuunka ayaa shaki weyn dhaliyay. mar qura ayuu wadaadkii dalbaday in loo wada baneeyo qolka oo aniga iyo isaga qura aan isugu soo harno. dhammaan dadkii waa ay dareereen waxaana noqonay labadeena keliya aniga iyo wadaadka. wuxuu ii sii daayay gacantaydii oo maanta oo dhan uu hayay anigana waxaan dhowrayaa bal waxa uu samayn doono wadaadka. marna ma doonayo inaan fashilmo. wuxuu su'aaliga bilaabay magacaa anigoo islulaya sidaydii oo sii wata jiliinkaygii ayaan yiri waa curad. markaas ayuu wadaadkayga dharbaaxay dhabanka midig isagoo igu celcelinaya ii sheeg magacaaga. anna waxaan ku jawaabaa waa curadkii jinka ahaa. ilaa 5 jeer su'aasha iyo dharbaaxada wadaadka way igu wada socdeen. anna meel uma dhaafin inaan ku jawaabo adeeryaal waa curad. anigu waxaan ilaashanayaa hadafkeygii oo waxaan ku jiraa loolankii ugu adkaa ee ebad noloshayda soo mara. waxaan ka feegjiganahay wax walba oo fashili karaya hadafkeyga haddana waxaan la sahashan karin. marxaladda aan saaminayo waa mid aanan u lahayn waxa waaye aragnimo ah oo dhammaystiran. keliya dhiirigelinta aan haysto ayaa ah inaan mar ku soo guulaysto. waxaan qaadan karin marnaba inaan fashilanahay. saacaddan oo wadaadku wuxuu gartay inaan wado jiliin oo aysan jirin cid duushayda ka hadlaysa. malaha wuxuu su'aasha iyo dharbaaxada igu wado waa iscadeen nin yahow caafimaadka qaba oo sheeg magacaaga dhabta ah ileen waad fashilan tahay. anna waxaan isleeyahay armuu wadaadku moodayaa inaad ilowday magacii aad haddaay sheegtay. markaasaan isaga xargagay ama aan ku adkaystay adeer waa curad. ugu dambayntii wadaadkii oo ama kaag indhaha la taagaya haddana la yaaban sababta igu kalifi karta inaan qoyskayga u jilo riwaayad noocan ah oo aan sheegto ama aan aqbalo xanuun aan weligay xitaa i qaban ayaa durbadiiba ila galay waraysi dheer. waxaana ugu warbixiyay xaqiiqda aan ku noolahay iyadoo indhahaygu ay mararka qaar ay biyo soo dhaafeen ama ilmo. aad buu wadaadku u qiirooday waxaana kala kulmay qalbi bini'aadanimo. wuxuu ugu yiri Maxamuud iyo maamada mooye yaa kale oo mas'uul ah oo kula socda. waxaan u sheegay in adeerkan uu nala socdo. wuxuu haddana i su'aalay imise jeer ayaad aragtay ninka wadaadka ah iyo gabadha. waxaanba u sheegay in gabadha aan arkay ugu yaraan 6 jeer laakiin odaygu 4 mar baan aragiisa xusuustaa. wadaadkii oo aad moodo inuu xisaab kale ka shaqaynayo ayaan ka fahmay isagoo leh tiro 10 wax cilmi ah kama haysto. wax 10 ah ee uu wadaadku isku darsaday. waxaase adigu dhagaystayaal sheekada aad fahmi kartaan inaan bixiyo jawaab 6 iyo 4 ah. wuxuu u siiyay dardaaran kaas oo aan ka xasuusto inay xanuunka waalidka ka sii daran tahay marka aad ka been abuurato caafimaad qabka ilaahay i siiyay. wuxuuna iiga garaabay in dad badan oo uu horay ula kulmay ay caafimaadkoodu u sabab ahaayeen dadka ugu dhow qoyska ama ehelada. arrintaana sabab badan ayay ku timaadaa. mar waa dhagarta ama damaaciga aadanaha marna waa jaahilnimo laakiin anigu sababta xaaladeeda midda ay tahay macadda. waxaa loo yeeray adeerkan oo nagu soo biiray aniga iyo wadaadkii. waxaana loo sheegay inaan ahay ruux caafimaad qaba laakiin ay jiraan duruufo u baahan in dad isla qoyskahi ay soo baaraan si loo ogaado xaaladda jirta. adeer way ku adkaatay inuu fahmo kadib wadaadkii ayaa su'aalay adeer aaway Maxamuud. adeerkii baa ku jawaabay Maxamuud wuu tagay oo maxkamadda ayaa looga yeeray
maalmahan halkaas ayay kiis adagi uga socdaan. Waxaan mar qura beeniyay dareenkaygii ahaa Maxamuud wuxuu ka cararay inaad goobta ku kashifto oo waxaan aaminsanaa inaan cabsi geliyay markii aan ahaa jilliinkii curad. Waase mid danihiisa u baxay oo ku jira xaalado ka sii waaweyn kuwani. Tani waa fajac kale, xaggeen u qaadaa waxaan i haystaa. Ha degdegin, weli wax been noqday ma jiraan. Waa talada nafteeda aan ku dejinayay. Intaas kadib aniga waa la ii fasaxay, waxaana isku haray wadaadkii iyo adeer. Waxaa la ii soo fariisiyay meel bannaanka dadka indhaha unbay iga eegayaan. Qofkii ay indhaheena isqabtaan horay buu ka sii jeesanayaa. qaar iga cabsanaya iyo kuwa ii cabsanaya ayay dadku isugu jiraan. Waxaan arkayay Sahra iyo gabadhii aan u xiisay araggeeda oo kursi fisan wada fadhiya, dhankaygana soo eegaya. Markaas ayaan dhoola cadeeyay, labaduba dhoolahoodu quruxda badan ayaan arkayay. Sahra ayaa ii timid agteyda, laakiin boqoradii nafteyda xilligaasi kuma kalsoonayn agteyda oo halkeedii ayay naga soo dhowraysay. Sahra ayaan aad u sheekaysanay ilaa dadkiina arkayay ay sawirtaan inaan nahay qof caadi ah oo la ag fariisan karayo ama loo tagi karo. Markaasay bilaabeen in qof dadku ay igu yimaadaan. waqtiyada qaar waxaad noqotaa adoon hal ruux kaliya farxadda ka hela sida aniga walaashay Sahra ay ahayd. Haddaba adeer iyo wadaadkii oo wada socda ayaa soo baxay. Way soo wada hadleen ilaa xad anigu ma ogi waxa lagu soo ballamay, laakiin waa waxaan wada ogaan doono. Ruux walba oo aan u sheego qisadeedana wuxuu isweydiinayaa waa kuma qofka ka dambeeya dhibaatadan ku haysata. Odayga iyo gabadhu maxay ahaayeen? Madaxa muxuu kaaga salaaxay odaygu? Kursiga maamada maxaa soo siiyay odayga? Gurigii qurxoonaa iyo ganjeelkii bacaadka ahaa sidee isku qabanayaan? Weydiimahan waxay dadku ogaan karaan marka aniga aan helo wada aan ku fahmo dhammaan waxa dahsoon. Haatan waxay qisadeedu ay galaysaa waji marxalad cusub oo soo dhaweynaya ogaalka dhacdo walba iyo weliba siraha ka dambeeya. La soco qaybta 9aad ee sheekadii curad.